ku bilownay xisbiga mucaaradka ah ee Somaliland ee wadani ayaa maanta hakiyay isku soo bax ay sharito mas'uuliyiinta xisbiga ugu baaqeen taageerayaashooda kadib markii la sheegay in xalayto xubno erga ah oo iskood isku xilqaamay ay u kala dab qaadeen xisbiga iyo xukuumadda. warkan waxaa Hargeysa ka soo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Cakuule. xubnahan ergada ah ee dhexdhexaadinta ka dhex wada labada dhinac ayaa la sheegay inay ka mid yihiin madaxweyne ku-xigeenadii hore ee Somaliland, gudoomiyaha xisbiga UCID, madasha wada tashiga, qaar ka mid ah ururada bulshada oo ay ka mid yihiin dallada ay ku bahoobeen ururada aan dawliga ahayn ee Sonsaf iyo xarunta akademiga nabadda iyo horumarinta. xogayaha abaabulka iyo wacyigelinta xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdulaahi Jaamac Ismaan Geeljire ayaa u sheegay VOA in arrintaasi xisbigu uu aqbalay in la dhexdhexaadiyo. maanta waa runta fariin baanu diray. fariintaasi waxay ahayd inaanu hakinay isu soo bixii xafiiskayga aanu ugu yeedhnay taageerayaasha xisbiga oo ahayd inaanu wadno si joogto ah. ayaa waxaa noo yimi ilaa xalayto ergooyinka la jaajaada oo reer Somaliland oo doonaya inay arrinta aanu ka cabanayno iyo khilaafkana dhex taagan annaga iyo xukuumadda inay wax ka qabtaan oo labada dhinacba soo arkay oo doonaya inay arrintaa galaan. marka annaguna waxaanu aqbalnay ergada. waxaanu nahay xusbi markiisa horeba u socda mabda aanu ku soconaana yahay Somaliland midaysan, Somaliland nabada, Somaliland dimuqraadiya oo hore u socota. marka erga nabadeed dhaqan baynu leeyno. erga nabadeed lama diido. marka erga nabadeed oo caadanayno ahayd waanu aqbalnay. marka waxaanu maanta hakinay xusbiga taageerayaashiisii aanu ugu baaqnay inay xafiiska yimaadaan oo ay isu soo bax ku yimaadaan xafiiska. waxaa kaloo socday gobollada oo iyaguna ay ka socdeen isu soo bixii xafiisyadoodii. taasina way dhammaatay. sidaas ay markaan ugu baaqno. ergay markay ku dhex jirtaa ergadaasi waxaa laga yaabaa inay maalmo qaadato isaga dabqaadkeedu marka la eego mowqifyada ay kala taagan jireen. marka idinka laftigiinu ma maanta baa hakisan baaqiini taageerayaasha xisbiga? waxaanu qaadanay inta ergadaasi socoto. maaha arrinkan arrin wakti badan u baahan. marka horebana arrin inuu halkan gaadho ah may ahayn. waa ogtihiin waxyaabaha ka mid a cabashooyinka xisbiga 2 sannadood ayaa xukuumadda nimanka jirtay. 2 sannadood madaxweyne wuxuu ku adkaysanayay ama tayada raac ama tubta qaada. intaana waa loogu dul qaadanayay. laakiin markay gaadhay halkan oo kale in la yidhaha warbal sharciga hajabine xubnahan commissionka ee aynu doorashada ku gelayno ha u eegin inaad adigu ay ku taageerayaan ay ku eexanayaane 5 xubnood baad ku leedahay. 5 xubnood oo sharciga aan jabini wax kaa hortaagin ma jire soo saar. uu taana ka diiday uu weliba ku daray inuu nagu soo eedeeyo in xisbiga wadani ay ammaanayaan oo ay taageerayaan meel kale inoo horay. dee waxay gaadhay riixniinkaa badan. dee waanu iska soo taagin. qofka haddii la riixo waxaanu anagu dhowraynaa waa waddanka, waa midnimada, waa wada jirka. marka intay ergooyinku noo socdaan ay arrintaasoo fudud marka dhinac laga eego ay dembeel ka gaadhayaan. waxaanu hakinay isu soo baxyadii aanu ugu baaqnay taageerayaasheeda. aad iyo aadna waan ugu mahadnaqaynaa taageerayaasheeda noo dhiga fudud. dhinaca kale gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee UCID injineer Faysal Cali Waraabe oo la hadlayay warbaahinta ayaa sheegay in ay la kulmeen mas'uuliyiinta xisbiga wadani ayna aqbaleen, isagoo geesta kalena rajo wanaagsan ka muujiyay dhinaca xukuumadda gaar ahaan madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha gudaha oo uu sheegay inay la kulmayaan. waxaan u tagnay anagii odayaasha anigu xukuumadda hadda waxaan qaadanay magacanaysa odaynimada si xisbiga halkaan ayaan dhignay. wasiirka daaqay waa u tagnay anagii odayaasha madaxweynayaashii hore iyo qolada ka socota akademiyadda boorka akademiyadda iyo akademiyadda. maanta waa agso macaway nagu jiraan civil society-gi markaan warna socda. waxaan doonayaa inaanu qolada wadana ka raaridno inay joojiyaan mudaharaadka. inshaan mudaharada maahe dee isku soo baxa oo sharcigu siinayo haddaa la qoonsaday xafiisyada isku kaale dawladda ay soo dayso ciddii xidhay ee ka tirsanaa xusbiga. markaa wadani waan ka helay 10 saac aan la ballanay.
madashino aad u maxasantahay way ergeyada ku yimaadeen wayna ogolaan ergadii hadda waxaan ku socdaa wasiirka arrimaha dibadda ee gudaha insha Allah naga ogolaan doona ergada madaxweynaha jiniya jawaan isku tagi doona inta wajina waan isku tagina waxaan adeegsanaa insha Allah taala burhaantan ku ciina insha Allah dhexdhexaadintan ayaa ka dambeysay markii murankii u dhaxeeyay labada dhinac ee xukuumadda iyo xisbiga wadani uu meel adag gaaray shalay taageerayaashiisa gobolada kala duwan ee Soomaaliland taasi oo uu maanta hakiyay kadib waanta bilaabantay Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa halkan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda VOA sarkaal ka tirsanaa maaliyadda maamulka koonfur galbeed ee magaalada Afgooye iyo xubin kale oo ka mid ah waxgaradka degmadaasi ayaa dabli hubaysan ay xalay ku toogteen magaalada Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan noo haya habeennimadii xalay waxaa gudaha degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose lagu dilay Samadoon Cali Maxamed Cali Dhuun oo ka mid ahaa waxgaradka degmada Afgooye iyo agaasimo Nuur Faarax oo loo yaqaan Nuur Xawaad oo ahaa agaasimaha canshuuraha wasaaradda maaliyadda maamulka koonfur galbeed Soomaaliya lama oga sababta rasmiga ee ka dambeysay dilka Samadoonka iyo agaasimaha hase yeeshee wararka degmada Afgooye naga soo gaaraya ayaa xaqiijinaya inay baxsadeen kooxaha dilalkaasi oo siyaabooyin kala duwan uga dhacay gudaha degmada Afgooye ka dambeeyay labadan ruux ee degmada Afgooye lagu dilay Samadoon Cali Dhuun iyo agaasimo Nuur Xawaad waxay ka mid ahaayeen ergooyinkii soo doortay xildhibaanada dowladda federaalka Soomaaliya waxaana muddooyinkii ugu dambeeyay jiray beegsi lagu hayay ergooyinka xildhibaanada federaalka soo doortay iyadoo mas'uuliyadda arrintaasina ay sheegteen kooxda Al-Shabaab Mukhtaar Maxamed Catoosh VOA Baydhabo